ciladii jirtaa waxay tahay xitaa maamulada hadda maamul goboleedyada hadda tusaale oo kale Puntland Jubbaland Somaliland ama Galmudug oo kale kalluunka maanta soo baxayo wax ribooda lagama hayo doomaha shisheeye dalka imaanayo oo maamul goboleedyada soo dhex marayo oo waxay sameeyaan xaalufin xakameyn joogto ma leh xakameyn joogto wax dhan oo wax laga sameeyo ama la rabo in la ogaado la qoro waa in subax kastaba kalluunka deegaan kastoo xeeb ah oo xeeb leh waxa la rabaa kalluunka subax kasta ka soo baxay in la kontrolo oo la hubiyo dowladda Soomaaliyana awooddaas ma laha haddii ay jirtana waa aad jirta haddii jirto xitaa waa xamar wax dhaafsan maahan xamar wax ka badan ma laha weliba waa aragtay TikTok waa ku aragteen kalluun walbaha shiilaad isticmaala waxaa soo dhaqay baraabo waa aragtay meel la kala geeyaa la ilaahay marka waa aragtay meel la kala geeyaa la ilaahay warshiiqi ilmaha meel la kala geeyaa la ilaahay kismaayo يقول رئيس الجمهورية لوكاس كسب بالله لو يعدي أو بربري حقي تركي إلا يحمر الإيمان يعني واحد كنترول ولا ملا وحصل بحذا حذر ماشي وري واللي باح ناقة شو واحد استهنا بأني حالي كشيء وابن هي ما يدي مت كاسا labada kabtana waxay sameeyeen xogaa iska itaal dhexdhexaada waa taqaanaa oo u soo qabta dhexda u soo gala oo u taagay labada gaanjee gashteen way garaaceen markay garaaceen nafta ka gudbiyeen ee waxay dhashayo soo saar marka hore gaanjada hayaan midna uu garaacay midka kalena gaanjada kala qabtay gaanjadana oo qabta soo dhigay way garaaceen xista xaalad dhan ay rafanaysi oo hore ka dhimanay inta waxa xasuusta tuulay xitaa afkoorka geliisa soo jeexay biyihii ku celceliyeen libaaxa hadduu nin yahay iyo haddii naag uu yahay naagta haroon ninka ayagoo horta sahal laguma dilo wallaahi serious kala hadlayaa wax serious libaaxa inta adiga asiga aragto ina ugaarsato boqol jibaarkiisu ugaarsanaya oo ku jila sahal kuma dhinto laakiin kan ninka ah wuu ku dhibaa xeer xitaa wuxuu gaaraa afka inuu saas u soo kala qaado oo doonta jimbigeed inuu saas ka ugu qabto oo ku hoosna ku qabto oo wuxuu bilaabaa in wax la degay dhan asiga iska dhigo hasi doonta dhaxal meel uu ciyaarey marka waa gab hagarlow asiga waa bashaqadiisaba hadduu kugu soo aado inuu saas ku dilo badanaa sameynaa wuuna ka badan yahay naagta harood oo naagta waxay ku roontahay oo kale haddaa cabaar lagu wareeriso kale maarkino inay hawada jirto inay ka baxda isdhiibta camal laakiin sahal kuma dhintaan waana noolayaasha ugu adag markii la dilaayo dhibka laga maro maraba magaciisa inaan sheegay waa iga soo fakatee waxay shacabka kala dhexda soo gal baadina biyaha ku celceliyeen oo ugu celiyay gaanjada labada gaanjood marka waa la gaanjeeyaa marka lagu leeyahay gaanjada waa tanaa birtilibka dheerta qoloocan marka geesaha laga kala geliyaa xitaa wayanbuurada iyo istawaanigaba ayagoo noonka ugu imaad saasa u kala gelinaya labadaba nasha waa ku dilay gaanjada qasab ba markasta inay haysato oo waxa dhanaa wax ku ugaarsanayso marka dhexda u soo kale naagta waxay iska dhigtay libaaxa ahayd wax dhigta soo saar shacabka kala dhexda soo saar gaanjada iska daaya gaanjada gadaala inay u bixiso kor u soo qaada marka ana waxaa haystaa markaa soo qaada jilaabka wuxuu uga galay halkaasuu ka galay meel fiican uu jilaabka ka haystaa oo uga dhegan yahay markaasaa inaa gadaal u celiya doonta madaxa ku soo saartaas dhahay hal maray waxay samaysay kor inay isku qaadeen kabtankii inta iga xigay waxay rabtay xusulka inay ka baxsato afkay saas inay usoo taagtay lahad ismartay hal mar waxaa dhacday gaanjadii oo waxaa arkay uu ku haay oo anay ugu soo socdo
dheg aa iska siiyey saa waa fiiri sa jagta ay ku dhufatay maadaama ay qabo weyse cusubka ay ka heli weyse waxay ku dhufatay bahalo jug ah doontii kalbarkeed iyo dhumaadkeedaa wada taagneynay afka hore waa taqanaayo tiibada hore ee waxay ku geysay ku dhufitaankii xagarta madaxa ugu ee jugta ee siisay waxay ku dhaca doonta afkeeda markaasaa ilaan waxay rabtay inay xusulka ka baxsato markii saan mar hadduu libaaxa wuxuu sameeyaa markii xoogaa biyaha lagu celceliyo uu kuu jiro inuu wax dhinta u yahay markii lasoo qaadayo oo wuxuu awoodiisa seenta isticmaalaa inuu ku istaago oo hal mar ugu dhufana haa hadduu afka kula heli waayo afka hore kugu dhufanaa turuska jugta oo kugu dhufto adna waa dareemay jugta ee habarta ku dhufata kabtankii afka hore asoo digib ku haya arag markaasaa waxaa ku wadnaya wax midilina ii qabtaa geedkaygaa soo qaatay oo ii gaanjaayeen sirbatooyada shidaalkaas ka soo baxshay tubada shidaal afkii markay soo dhawaa ii soo dhaweeya kuwa shidaal afka uga shubo gaadka markaa qabsadaa 7 in adeer markaa u dhiibay markaasay si sax indhaa u bedeshay marka waxaa xasuustaa kabtankaa wuxuu yidhi naftiisa ka bixin Shucayb waa dishee naftiisa ka bixin waxaa samaysaa ayadoo intaasa hadda ay nuqsanaysa ay rafanayso wayna caawinaya soo saar kabtanka markiisa waa qaadasho muugta waxaa fiican markaa badda joogtana badanaa kabtanada markiinoo kale aada suriya badda oo kale markaa la socota ardayaaba leeyahay arday siin beriyo waxaa loo dhaqmaa sidii qof arday macna maxaa kuwa qabtaan aqoon kabtan maxaa qabtaa kabtan see wax yeelaa see la weydiiyaa marka nafta intaasa ka bixin soo saaro saa gaanjada ay la haystaan mugta dhexdii ahaaya gadaal aynu u celiyaa caadi soo saaro seenta ka siis waa inta yartay nafta kasii baxayso marka seentay marka ku istaagay libaaxna sidoo kale noolo kastoo badda ku jirana markii la dilo intuusan nafta ka bixin oo seenta uu ka nunuuxinaa aa la soo saaraa doonto haddii kale lama soo saari karo hadduu mar nafta ka baxdo ma qaadi kartid hadda waa aragtay liido waa ku aragtay axmar weyne waa la soo jiidaa soomaalita buurooyinka kulli waa soo wataa indhahaga ku aragto waa la soo jiidaa kaas hadduu mar nafta ka baxdo ama uu doonta ka weyn yahay ama kalluun badan kale aad soo saarato oo kale tusaale kale 70 jili baa dhigta badda ama 80 jili baa dhigta 40 jili baa ilaahay wax kaa siiyey midku ka weyn yahay ilaahay ku siiyey maxaa doonta ma soo qaadi karto ma riixi karto maxaa ku khasbanaanay inay jiido xarigii burisinka inay furto ama xarigii jeestada inay furto lagu xiro kalluunkii la soo jiido marka noolaha intuusan dhimanna waa xirfad kale u baahan barasho marka insha allah sheekadan waxaa ugu soo gabagabiyey oo ugu keenay dhibka laga maro libaaxa ama kalluunka badda markii la ugaarsi tagaayo kalluumaystada waa ugaar tagaan mugta marka maadaama hadda aa ku keenna maareynta sida hadda fikirka aa ka qabtaan fikirka meesha yaalo biyo ammaanaa yaalo inaad shaqo rageed aad baranayso biyo ammaan ku keen marka meeshaas sheekada waxaa ku keenna biyo ammaan shaqada halkaas taalo shaqo rageed weliba xitaa rag qaar ah waxay dhahaan ilaa badda mar naga bixi ilaa $300 haddaa ku shaqeyn والله كفتر وأكيد كفتر هذه ما سنت كابتن وحارب على قصد وجودا ببرنامج كده وبنت إن كلوميس وبنت إن كلوم كان سياد لو وجاسم أنا أد لو كلوميس مركب قارس لو وبنا هنا نشر أرتا ما هيش هسوي فوضى ضروري لكن سومالي ممكن يجوا الوسطى دولتها يلا ما يصير وحاجة بدها ولي سومالي كمان طبعا الذي جرتا واحد تمام ملاحظ حد ما من قول يد عند تصارع كل بدلان جبلان سوماليان أو تقول ملوك وكله كلون كمان تصوب حيو وحر بوضع لجماعة دوما هالشيء ذلك معنا هاي أما ما من قول يد صور حمر هاي وحسن يعني حلوفين حكمين جبت ماله حكمين جبت واحدا وإحنا جالسين نيو مرهبين له بعد مرة لقر لقر وإن صباح كستبقى لهم
deegaan kastoo xeeb ah oo xeeb leh waxaa la rabaa kalluunka subax kasta ka soo baxay in la kontaroolo oo la hubiyo dowladda soomaaliyana awooddaas ma lahayd haddii ay jirtana waa aad u jirta haddii jirto xitaa waa xamar wax dhaafsan maahan xamar wax ka badan oo lahan weliba waa aragtay tiktok waa ku aragteen kalluun la dhaha shiilatistaan waxaa soo rakay baraab waa aragtay meel la kala geeyaa la la'yahay marka waa aragtaa meel la kala geeyaa la la'yahay warshiiqi cilmicaan meel la kala geeyaa oo la'yahay kismaayo iyo ilaa raaskan gooni dhulkaas kasoo bilaaw looya cadde oo barbare xaggeeda korkeeda ilaa iyo xamar la imaanayan wax kontarool lama leh weliba maraakiibta iyo doomaha shisheeye wadamadaas aad u waashay weliba waxay sameeyaan shabaagta waa taqaanaaye labada injin furan ee isticmaalaan xitaa waxay ugu talagalaan in noloshu ku noolaanba oo biyaha Soomaaliya taasoo ma ogid waddan kasta wuxuu leeyahay xoolaha soo galo hadda tusaale kale markii dadka kulley waxay tiraahdaa markasta dadka wax cararane wax ka faafay kala bixi waxa jirto kabtamahado waxaa jiro sharci dhigaayo caalamka tusaale kale hadda libaaxa iyo gariga iyo maroodiga Kenya ku noolaayeen waxbay environmentalka ama deegaanka wax ka dareemeen Soomaaliya soo galeen Soomaali ana maalay noqonaayeen sida sharciga adduunka sida loo dhaqmo marka saas opposite-keeda ku soo jeedkeeda badda loogu dhaqmaa kalluunka Hindiya ka soo tago ama badweynta caalamka kale sida xad Soomaaliya xuduudaha ay leedahay badaha kalluunka ka soo tago biyaha Soomaaliya soo galo Soomaaliya iskale sax ana iskale kiiga soo baxmal dhahaa marka si dalkaaga burbur loogu geysto xaalxaalufinaya واحد من جريفة يحدنا على اسمه شبكت وأنا تقانا شبكت إيش عالم ولا ممنوع واللي بالصومالي حلو يقول لي وحشن أفر وحكي بالهذا اللي يقول لي سد حمي استعمالها وحكوش الصومالي لكن مراكب تيدوها شيء مكة إما هذا دلك وحي استعمالها لبي إنجي حد صرت دلك مرة بدنا waxaa soo qarxiyo kalluumaysatada markaas aragto dhibaatada lagu haayo kalluunkooda iyo deegaankooda maamul wax ka qabtaa in dawlad maanta bir oo gacan dad kula xisaabtantana ma lihin boos qof kasta oo daneynaa kastirto oo qaadana ninka asaas ku leeyahay jabka waa kastirta marka dalkeenana waxaa moodaa in qof kasta oo ka niyad jabay dhalinyaro xara meesha filayn uga diro dawladda dhalinyarta kalluumaysatada ah dadka ka shaqeeya ama ku nool biyada badda ama waxa xandaabkiisa ah inay dawladda il gaar u lahaato waxa hadda Soomaaliya ka balaada ka kicilaada xaalufinta hadda deegaanka lagu haayo suntiya ku soo siyaada qaraxiye sameynayaan adin ma ogi Soomaali weligeed kalluun qarax kuma sameyn history-ga hadda أنا أحتاج صبرا ما نسميها سماعة قرح بدنا لكن عالم كوالا سميها محل الله سميها قرح حاس إن ديجان كاس وكجورة كلون وكدبر جوا مركب بيهن على خضرها لجوها هي كم يتاح هي كلون كان مركب ما هذا كل ما رأيت إنتاس هذي منهين حاجة على الله إذا يديسو ما أنتني تو ما جو هذا لا واحد له هذه كفتن بقولك بقولها كان هذا اللي ما سوي بروح للبلم وأصحابها وقفة يعني هاب كلام على كلام مسك سو كلت أنا ظهره وشو شرحنا ما ملك برمرنت حتى من أول دنيا خبت مهرنت إن هرت جودها سؤالين هالكسر كنا مهرين وها مهرنت كلام مسك وكأصحابنا حرجينا يعني إن سفي عن أفهمي sidoo kale waxa soo socdaan muuqaalo kale oo ayagana quseeyo isla mawduucyada kale koos anaga waxa ku soo stage iyo wax adanka markaas ma soo dalbataan marka aan kabtan aad iyo aad u asantaa kulli kabtamaad ina iimaad celisin maahan channel keeni qof kasta oo dhan u yahay waxa jeclaan lahaa barnaamijkan taxnaha kheyraadka badda in aan ku soo siyaadin بنيرت ما تحبرت
iyo dadkii hore inaan cilmi kareeno oo dhaxal ah waana sababaha hadda janaalka u sameeyay oo qof kastoo dhalinyaro beri usoo baahdo cilmiga badda ama culumta badda soo wax uga qaata reference xataa oo wax muuqda xitaa uga heli karo listi marka insha allah barnaamijkaas waa barnaamij weyn oo janaalka kusoo kordhi doono waxaan wareysan doonaa maskaxdii Soomaaliyeed waa ku tala jirnaa oo barnaamijkaasna qabano oo loo jeersan yihiin insha allah waa muuqaalkan waa ka arki doontaan muuqaalada aan soo busto gareynaya uu soo socdo insha allah marka su'aalihiinana insha allah waxaa sameyn doonaa maalin oo hal mar video ah data collection oo sameynaa dadka commentiyada soo dhiibanayo iyo waxyaabaha ay soo codsanayaan oo dhan iyo su'aalaha ay soo weydiinayaan meel gaar ah lagu qoran yihiin maalin ka jawaabi doonaa qof kasta su'aashu soo qoray su'aashu rabo in lagu jawaabo muuqaal insha allah ka sameyn doonaa marka ay kabtan guud ahaan mawduuceena maanta intaan nagu egyahay asxaabta idinkana waxaa idin leenahay mawduuceena intaan ku egyahay waxaa idin leenahay khayr iyo caafimaad kulanti dambe oo xiiso leh